Habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena Astaan Horumar ee studioga Melbourne ee dalka Australia. Barnaamijkeena caawa waxaa marti uga ah Yaasiin Maxamed Faarax oo aqoon-yahan ah. Waqtigiisii hore ee Soomaaliyana wuxuu ka shaqayn jiray wasaaradda fidinta beeraha. Wuxuu ka baxay dugsiga sare ee fidinta beeraha. Halkaas ayuu shaqo ka bilaabay. Waxbarasho waxa uu tagay wadamo badan oo ay ka mid tahay India, Philippines iyo Masar. Yaasiin waxa uu Australia yimid 1994 markuu halkan yimidna waxa uu bilaabay professionkiisii mid ka gedisan oo ah aqoonta xagga finance-ga iyo accounting-ka. Waxa uu furay xawlaadii ugu horeysay aan iraahdo markii ugu horeysay xafiis Soomaali ay leedahay ee si u shaqeeya professional ah ama si rasmi u shaqeeya. Yaasiin intuu sana Australia imaan xawlaadaha halka ka jiray waxa ay xawlaado yar oo guryaha lagu qabto. Nasiib wanaag markuu yimid Yaasiin waxa uu bedelay qaabkii xawlaadu u shaqeyn jireen isagoo oo furay markaa xafiis weyn oo si sharci ah u shaqeeya ee markaa systemka bankiga oo kala leh. Habeen wanaagsan ku soo dhawow Puntland TV. Habeen wanaagsan Cabdi waa mahadsan tahay. Inkastoo aan hore u sheegay waqtiga aad timid bal waxaad ii sheegtaa markii aad timid waqtigii aad timid iyo sidaa ku timid Australia. Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waa u mahadnaqayaa dhammaan idaacadda TV-ga Puntland TV gaar ahaan Cabdi Cilmi wareysiga caawa maaragta aad igu yeertay. Run ahaantii waa ka mahad celinayaa. Waxaan imid Australia sanadkii 1994 waqtigii aan imaanayay. Waxaan ahaa dadkii ka soo qaxay Soomaaliya Muqdisho markaa ka shaqeynayay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya gaar ahaan mashruuca fidinta beeraha ee xaruntiisa Afgooy ayaan ka shaqeynayay. Waxaan imid Kismaayo dabadda Kismaayo ka soo gudbay. Waxaan imid Kenya xero qaxooti ayaan soo galay oo Kenya ku taala xeradii qaxootiga la oranjiray Utaanka. Qaxooti ahaan ayaa markaa la igu qaabilay oo dowladda Australia ayaa soo qaaday oo anoo hab qaxooti maraya. sidaas ayaan ku imid 1994 Australia. Markaad Australia timid ee aad soo degtay shaqadii kuugu horeysay maxay ahayd halka ka qabatay? Shaqooyin badan ayaan soo maray markii horeysay aan Australia imid. Shaqadii iigu horeysay waxay ahayd shaqa company meel warshadaho packaging lagu sameeyo ayaan ka shaqeeyay oo aan 2 asbuuc ka shaqeeyay. Dabeedna shaqadii ii xigtay waxay ahayd meel wool testing kaliya dhigorta xoolaha lagu test gareeyo laboratory-ga ayaan muddo 2 sano oo ka shaqeyn jiray habeenkii galabtii waan soo gali jiray. Markii aan ka shaqeynayay shaqadaas aan galabtii gali jiray 4 iyo barkan gali jiray ilaa habeenkii 1 waxaa jirtay shaqo kale oo dhinac socoto maalintii iskuul baan ka shaqeyn jiray waxaan ka ahaa macallimiinta ayaan caawin jiray teacher aid. Marka 2 shaqo ayaan muddo 2 sano isku waday oo ah laboratory-ga shaqada ah iyo iskuulka. Yaasiin farqiga u dhaxeeya shaqada Soomaaliya iyo Australia adoo soo koobay maxay ahaayeen waxyaalaha aad يعني أضلي أبتي أما كوجد بدنا ما دام أني سو شقيني ويا أرجع هل كان أعتمد أو سيستم هل كانوا سيستم كد كنا كد وكجد سنا سوماليا بالفرق أو ده هي. هانتي شغلي عن كشقين جري سوماليا وحيد وزارة البيئة قيبت بلانت بروتكشن أما قيبت لدقالن كعيان كيعذر هذا أيان شغلي أوريك بالعابي. dabeedna waxaan u wareegay qaybta fidinta beeraha oo ah wax gaarsiinta beeralayda aqoonta technology-ga casriga oo waagi hore beeralayda ama cagafyada intaan la gaarin xataa dibiya ayaa wax lagu fali jiray in beeralayda Soomaaliya la gaarsiiyo horumarin dhinaca wax soo saarka ah. Technology marka waxbarashada shaqadeedu waxay midna hadda markaan ku sheegay saa ii sheegtay aad bahada waxaan waxbarasho u tagay markii muddada Soomaaliya ka shaqeynayay India waxaan u tagay Masar waxaan u tagay Philippines. markii wadawasna la keenay oo hawlwadanadii wasaaradda beeraha fidinta beerahana la keenay waxaana loo keenay in aan technology maadaama Soomaaliya wadamadaas ay isku hawo dhow yihiin xagga dhaqaalahana isku mid yihiin oo systemkooda beeraha Soomaaliya u dhow yahay in la baro habka waxyaabaha inaga fiican beeraleydooda inaan soo barano dabeedna u gudbino beeraleyda Soomaalida oo aan barno ayaan soo baray shaqadii marka waxay ahayd waxbaris iyo kormeerid ayay shaqadeedu ahayd markii aan Soomaaliya ka shaqeynay badanaa ama maamul ayaan ahaa ama waxaan shaqadiisa isagu u madax banaan oo laga rabo inuu intuu shaqo qabto warbixin keeno oo lagu la xisaabtamo wax soo saarka shaqadiisa. Australia laakiin waa subax soo kala hadaa waa inaad timaadaa waa inaad maaragtay time ka meesha aad buuxisaa daqiiqad buuxisaa birrif malaha
daqiiqad salaada xataa saa ku tagto ciriirin waxa la oranayaa salaada waa isku soo daahda daa u baxdid marka shaqadii Soomaaliya iyo shaqada way kala duwan yihiin waxa lagu xisaabtamayaa halka kan saacad baa lacag lagu siinay iyadana oo bir hour baa lacag ku qaadanaysa laakiin Soomaaliya bir hour ma jirino mushaar yar baa lagu siinaya oo sanad bishana ku shaqeynaysa marka systemka shaqada iyo systemkii aan wasaaradda xataa beeri shaqadii aan Soomaaliya uga shaqeyn jirnay hadda oo farm systemka ahayd oo wasaaradda beeraha iyo farm systemka Australia dhinaca beeraha sida looga shaqeeyo Australia way kala duwan yihiin waagi hore anagu Soomaaliya markaan joognay dawladda ayaa beelay dad waxa ahayn beelay yaryar oo aqoon badan lahayn dawladda ayaa dadka u tababartay shaqaalaha anagoo kale oo dadka barjis sida loo beerto iyo sida loo tabcado iyo sida cayayaanka iyo cudurrada iyo daawooyinka beeraha looga shaqeeyo laakiin halka beelay waa weyn way wadankan oo beelaydu iyaga ayaa tijaabadii iyo maalgelintii cilmi baaristii iyo aqoontii oo dhan iyaga isdabara iyagana waxooda isla leh beelay maal qabeena way kala duwan marka laba beelay sababtii ugu kalaftay marka inaan marka dambe aan ka shaqeyn waayay dhinaca beerihii oo shaqadeedii aan aadi waayay oo shaqo uga waayay taas keentay marka gormay kugu dhalatay inaad iska u shaqeyso oo xawlaad furto waxay ugu dhalatay markii ahaantii nin aan saaxiibanahay oo markaa xawlaad ku haystay Nairobi oo waagi horena aan iskuul ahaan jirnay dugsiga sare beeraha ku wada jirnay oo leeyahay Qaasim Cali Shire ayaa ila soo xiriiray oo ii weydiistay inaan wakiil uga noqdo shirkad markaa lahaa xawlaadeed Australia saas ayay markaa igu kaliftay inaan wado oo aan ku bilaabay xawlaadii inaan guriga markaa hore ugu qabto ilaa markii dambe sanadkii 1999 aan furay kambanigii markaas xawlaadii inta isku darsameen xataa xawlaadiisi xawlaado kale intay shirkoobeen ay la baxeen shirkaddan la yiraahdo Amal Express shirkadda Amal Express markaa 1999 ayaa waxaan furay xafiiskii ugu horeeyay waxaan u maleynayaa xawlaado badan oo iga horeeyay way jireen oo guryaha lagu qabto laakiin inta aan xusuusanahay xawlaadii u horeeyay oo nin Afrikaan uu leeyahay oo xafiis wadada guri looga kireeyo anaa ugu horeeyay inta aan ogahay xawlaadihii maanta tabal adoo soo koobaya halkoodu seebuu noqonayaa dhib badan baa hadda ka jiray haddana waxaan ogahay inaad tahay guddoomiyaha xawlaadaha isu tegay ayaa tahay hadda bal arrintaa adoo soo koobaya see xaaladdu tahay mustaqbalka xawlaaduhu maxay noqon doonaan ru'aantii su'aal meesha ku jirto ru'aantii xawlaadaha waayahan waxaa soo food saaray arrin aan adduunka oo dhan oo global ah oo adduunka oo dhan ah aan Australia ku gaar ku ahayn wey waxaa jirta in wadamada badanaa gaar ahaan wadanka Mareykanka sharci soo saaray intii ay dhacday maaragtay September 11 qarixi ka dhacay ka bacdi inuu soo saaray American Act sharciga xagga lacagaha oo ah oo any American dollar lacag kastoo lagu diro meesha ay ku dambayso in la ogaada sharcigaas ayaa marka bangiyadii iyo adduunka oo dhan saameeyay oo wadan walba lacagtii marka US dollar lagu diro waxay maraysaa Mareykanka markaas wuxuu leeyahay lacagta ay ka socotaa ay ku timid in bangiyadii waaweynaa Mareykanku marka bangigii xawlaad la dhiil gareeya oo xawlaada macaamil leh xiriirka ayay ka joojinayaan marka say waxa dhacday bangiyada halka kan inay xiriirkii joojinayaan oo leeyihiin haddii xawlaad la tahay anagu maaragtay lacag ku dirimayno oo xawlaadii ku gudbimayno adduunka ma ka jirtaa anagu Australia hadda wayna soo gaadhay bangiyada waaweyn oo dhan xawlaadaha hadda way naga xireen badankood hal bangi ba ayaa haray xawlaadaas marka arrintaas dawladda Australia iyo dadaal badan baan ka marnay waagii markii bangiga u dambeeyay Westpac uu xiray guddi baa la sameeyay macnaha bangiyada iyo dawladda iyo xawlaadleeda iyo ururka bangiyada iyo la isu tagay guddigaas muddo ayay wada shaqeynayeen هذا شغلين تاد قدام بس مركا شركة قدام أيها هاري آخر كده ولده واحد تي أنا إندستريجا واحد قعدت إن بنقذه حول هذا حرم أي قعدت. أنا كهلا مجا أورك حوالدها سومال ريمنتيس waxaan u sheegayaa in xaaladii cusub ay timid oo dhammaan shaqooyinkii xawaaladaha ahaa inay bangiyadii ay naga xirayaan oo waqti dhowna ay xirayaan sababta in nooga xirayaan waxa weeye khatar ay ka baqayaan ay leeyihiin macnaha businesskiina wuxuu khatar ku yahay inuu dhibaatin hadhowto dawladdu ay cadaadis ina saarayso darteed cabsida bangiyada haysta darteed baa noo keentay inay bangiyadu akoonnadiina waa xiraynaa xawaalada haddii la xidho noloshiina waa laynaga xidhay ee waa inaynu ka dagaalanaa dadkan u sheegnaa inay waxaanu xaq yihiin wax qaladana aynaan samaynaynin ee wax saxa oo nolosheennii ku saabsan aynu samaynayno bangiyadu inay xawlaaduna ay sharci leeyihiin laakiin wixii khatar ah ay iska ilaaliyaan oo bangiyadu ay iska ilaaliyaan wixii khatar oo lacagtaasi meesha ay ku dhammaanayso ujeedaduna waxa weeye dawladdu sharciyada ay soo saartay waxa weeye
in ay ilaaliso lacagaha la dirayo iyo meeshii aadeen iyo sida loo dirayo oo si nidaam la marsiiyo waxyaabaha dawladdu aad uga walwalsan tahay waxa weeye waxa la yiraahdo money laundering oo ah money laundering macnaheedu waxa weeye laundry waa garanaysaa waxa weeye waa dhaqaaq marka la dhaqayo laundry baa marka lacagaha la dhaqayo macnaha dhaqida lacagaha si loo dhaqayo macnaheedu lacagaha marka hore asalkooda intii si xaaraan lagu helo dabeedna loo bedelayo xalaal laga dhigayo intii la maalka la xalaalaynayo macnaheedu baa loo jeedaa marka lacagahaas ama raadgadasho in la raadgado lacagti waxaa ka mid ah lacagaha ama dadka si xun loo shaqeeyey oo waxyaaba khaldan laga sameeyay ama musuqmaasuq iyo corruption lagu helay ama lacaga si kale lagu helo cashuur lala goynayo cashuurta lala dhuumanayo waxyaabahaas oo dhan in dawladdu ay ogaato meeshay marayaan iyo meesha loo dirayo iyo waxyaabaha kale oo leeyahay waxaa la siinaa lacagaha argagixiso iyo dad baa maaragta wax loo gudbinaya leeyahay inkastoo dadka qaarkii ay dhahaan ba argagixisadu lacag badan uma baahna oo arrinta dadka aad arrintaas uga soo horjeeda waxay dhahaan argagixisadu lacag badan oo ay wax ku maalgeliyaan ma ay baahna wax yarba qofka argagixiso ku samayn karaa marka arrimahaas oo dhan baa waxay keenayaan dawladdu in ay ka walwasho laakiin waxa meesha ku jira waxa dawladdu markay sharci soo saartay xawlaadihiina laysin siisay oo tiri anagu waa register bay yihiin industry-ga ama idinkay jirta oo la macaamil lahayd bangiyada u qancin lahaydeen baa bangiyadana waxaa la yidhi xawlaadaha kulligood ha xirnina laakiin wixii khatar iska xira bangiyadana waxay leeyihiin annagu khatarta xawlaadaha ma ilaalin karno inaan iska xirna maaha waayo ma ogaan karno halkaas baa marka arrintu ay ka xun tahay oo weli uga baahan tahay taa uga baahan tahay marka marar badan oo aan marka u dhabagalay oo bangiyada aan la doodnay oo shirar galnay oo sharciyada dawladda si xataa aan u ilaalin lahayn iyo wax ay ka warwasiin ogaan lahayeenna bangiyadu wax fiican oo ku qanacno nooma sheegin ilaa haddeer marka waxaan is tiri marka dambe aakhirkii dee nin dukaan haystaa hadda maaragtay hortiisa in miis la dhigto ma ogolo oo badeeca oo gaday lala gaday bangiyadu malaha waxay idin deeyihiin lacagaha sartarfisa shaqadiin idin deeyihiin waan is tiri ma u malaynaysaa inka bangiyadu iyagu laftooda ay raadinayaan inay la wareegaan businesskaas aad ku jirtaan oo ay yacni rajaynayaan inay iyagu lacagahaas diraan waa arrintaas meesha waa ku jirtaa oo waxaan is leeyahay bangiyadu faa'iida doon weyn oo u dhowdo business bay wax u furtay inay faa'iido helaan way rabaan customerka macaamiisha iyaga in loo dhexeeyana ma rabaan oo meesha waa ku jirtaa haddana bangiyadu kama marna waxa la yidhaahdo maaragtay qaarkood corporate governance waxa la yidhahdo oo ah in ay dadka danyartaa wax u ogolaadaan oo arrintaas bangiyadu badanaa corporateska way ku jirtaa oo markii arrintaas lala hadlo waxay gaar ahaan markaan kala hadlo qadiyadda soomaaliya kale oo soomaaliya hadda maanta iyagu lacag ma gaarsiin karaan soomaaliya banki kama furna arrimaha arrinta soomaaliya kale macruuf ahaantii bangiyada markaan u sheegno u sharaxno waxay muujiyaan maaragtay garooshiyo ayay muujiyaan oo way ogol yihiin laakiin meelaha ujeedadu ma ahan soomaaliya arrintu ma ahane waxaa loola jeedaa lacagaha diridda meelo badan bay lacagta aada lacagta soomaaliya aada waxaa ka badan 20 goor ama 50 goor lacagaha wadamada kale aada gaar ahaan lacagaha xawlaada badankeeda waxay aadaa wadamada Asia ama China iyo India iyo wadamada lamid ah iyo xawlaada ugu badan aada marka loo barbardhigo waxa Soomaaliya iyo Afrika aada wax isu dhow ma Soomaaliya waa quudin baynu oran karnaa dad la quudinayo oo aan yani badankoodu waa biil la diro Soomaaliya biil la diro way marka la eego warbixintii dhawaan ay soo saartay dowladda Australia gaar ahaan xafiiska xiraalyaha guud baaritaan uu ku sameeyey Attorney General Office-ka warbixintu saaray average-ka Soomaaliya lacagaha loo diro waa $300 ilaa $200 average celcelis taas marka waxay noqonaysaa biil waa la ogyahay marka waa la ogyahay report-ka intuu maray hadda shaqadu way socotaa oo xawlaad hadda shaqadii waxa hadda oo isdhimay ma jiraan oo shaqadii way socotaa laakiin oo bangeer yar iyo waxbaa la haystaa oo lacag lagu diraa hawshuna meel fiican bay maraysaa dowladuna hadda way observe karaysaa hadda markii dowladda aan la hadalnay markii u dambeysay waxay dhaheen dowladda industry markii bangiyada ay xirmeen industry-ga way la socotaa dowladdu industry-ga hadda wax damage oo gaaray ilaa hadda weli nooma muuqdaan oo lacagihii waa la diraa shaqadii waa socotaa cabsi inta ilaa baa la qabaa in ay xawilaaduhu istaagaan adduunka oo dhan cabsi anigu waxaan is leeyahay xawlaadaha kulligood ma istaagi doonaan waayo baahi baa jirta loo qabo maadaama baahi ay jirto oo waddankeeni looga baahan yahay xawlaada ama ilaa Soomaaliya bangiga ka samaysmaan ama bangiyadaasi ay noqdaan kuwa la tartami kara xawlaadaha celin kara hawshooda oo joojin kara
oo bangiyo dowladeed oo ay samaysmaan oo dowladda Soomaaliya bangi dhexe uu shaqeeyo oo Soomaaliya ay noqoto meel dad lacag u dirsan karaan oo bangiyada xawlaha wax la tartama la helo laakiin xawlaadu ma istaagi doonto markii baahi marada jirto dadku ay rabaan dadku inay wax u dirsadaan wax hor istaagi kara ma jiraan laakiin waxyaabaha lagu ilaalin karo xawlaada waxaa ka mid ah in sharciyada wadamada la raaco oo wadan walba la diiwaan geliyo oo waxyaabaha la qarqarinayo qarsoodada la joojiyo oo nin walba wixii maaragtay reerkiisa markuu lacag u dirsanayo uu bixisi oo la yahay reerkiisa lacag u diraya qof u diiday inuu reerkiisa lacag u diro ama familigiisa ama hooyadiisa ama aabiis ma jiro baahi inta ay jirtana xawlaadu way soconaysaa mana istaagayso anu saan qabo goormaad Soomaaliya ku noqoto muddo intee leeg markaad ka soo tagto Soomaaliya 22 sano ka bacdi miyaad ku noqotay waqtiga ku noqotay goormaa Soomaaliya marar badan baan tagay sanooyinka ugu dambeeyay Soomaaliya oo waan tagay laakiin markii ugu dambeysay waxay ahayd sanadkii 2014 January ay ugu dambeysay Soomaaliya isbedel intee leeg baa ku soo aragtay dhinaca nolosha beec mushtarka dhaqaalaha markaad soo koobto mise waxaad leedahay wax badan oo kobcay ama ma garanaysa horumar ma jireen run ahaantii anu Soomaaliya horta ma wada tegin waxaan tegay gobolka Puntland oo gobolkii markii hore aan ku dhashay magaalada Garowe oo magaaladii aan ku soo koray aan ku dhashay iyo gobolka Mudug iyo kulli reer Puntland waan tegay ilaa Boosaaso run ahaantii waxyaabaha aan ku soo arkay wadanku waa isbedelay oo nolosha habka dadku u noolaa waqti hore waa iska bedelay oo dhaqaalaha dadka kor u soo kacay nolosha dadka kor u soo kacday magaalada Garowe ahaantii oo aad u weynaatay baan la kulmay oo ruuxantii waagaan anu igu dambeysay taxi waxa laga maqan laga hada baawur BL iyo bas iyo mootooyin iyo adduun ka soconayaan baan aad ugu soo arkay xagga dhaqaalaha waxyaabaha la yaab kale si aan ku soo oo aniga hadda Puntland wadanka markaan muddo ka maqnaa waxa keenay arrimaha xagga deegaanka ruuxantii baan aad ugu xumahay sida isu bedelay waxaan ka xumahay in aan soo arkay dhulkii maaragtay markii aan yaraa hawdka ahaa oo geedaha badan lahaa oo dhulkii dooxooyinka nugaalood cawska badan lahaa oo cawska ka baxa geeru qarsoomi jiray oo dhulkii nabaad guuray oo baaba'ay oo geedo badan lahayn oo ruuxantii baan aad ugu soo arkay waxaa ka mid ah dadkii reer guuraaga reer baadiyaha oo rarada iyo maaragtay cawda iyo waxyaabahaas samaysan jiray ama dhiilaha iyo waxa samaysan jiray oo markii dambe caagado isticmaalaya ama baco isticmaalaya ma waxaad leedahay dadka kooskaraynayo oo dhirtii baa la jaraya cawskii mise nabaad guur waxaa iska yimid nature dadku horta waa badanaya dhulkuna waa intiisii oo marka dadku ay bataan xooluhuna bataan dhulku waa yaraanaya laakiin maamul buu rabayaa wuxuu u baahan yihiin dhulka in si fiican loo maamulo nidaamka roolkii dowladnimada iyo dowladda ay qaban lahayd baa meesha inuu ka muuqan baa moodaa waayo dhulkii waagi hore waxaa jiri jirtay xirmooyin baa jiri jiray dhulka in qaar mar la xiro aan la daaqin xoolaha laga ilaasho qaybna mar xili kale maarata xoolaha lagu soo daayo waayo dhulka baadiyaha geeduhu inta ay miruhu ka samaysmayaan haddii geedku uusan mirihii samaysmin oo macnaha oo mirihii gaarin heerkii miraha gaarin oo xooluhu daaq inta xooluhu ku bataan xooluhu ay daaqaan macnaha waxay hadhowto miraheed markii ay geedku miruhu samaysmaan miruhu daataan mirahaas dhulka keli jiray soo bixi jiray marka mirihii soo bixi jiray xilli soo baabaan oo geed walba markuu soo baxo xooluhu markii meesha ku bataan markii la gooyo miraha ma samaysmayaan taas marka waxay keenaysaa in roobkii da'aya aan hadhowto roobka caws soo saarin waxyaalo badan oo wanaaga dhinaca horumarka iyo gawaarida iyo tagaasida iyo magaaladaad ku dhalatay oo yani kortay baa tagtay adigu dadka waxaad ka mid tahay maalqabeenka oo wadanka kan maaragtay allah ku zaaidiyo wax badan qabtay wax maalgashi ma ku samaysay wadanka arrimahaasi waa arrimo private horta waxaa la isma yidhaahdo maxaa dowladda Puntland maanta waxay ugu baaqaysaa inay dadkii soo noqda maalgashada wax dhisa moogtahay private ma aha taasi waxa weye waa arrin siyaasad cad oo dadka lagu soo jeedinayo oo dowladda Puntland aniga ilaa haddeer aan ka hayno ma jirto oo dadkii macnaha dibadda ka imaanayay run ahaantii waxaa la maalgelintood waxay ku xiran tahay oo marka u horeysa waxa asal u ah nabadgelyada meel aan nabad ahay cidinba maalgelinayso anigu dad ganacsatada oo ka mid ahay oo wadankan jooga oo ka mid ah dadka wadankan joogan kulligood dad badan oo maaragtay ama shaqaysto oo ganacsatada ayaa jooga wadankan oo badan dadkaas baan ka mid ahay dadka horta qof wax dheer ma ihi
maalgelin wadanka inaan ku sameeyana waa rabaa waxna waa ka sameeyay hadda oo maaragtay weli maaragtay hadda kama farmarni oo inaan maaragtay ku noqdo oo wadankii aan wax ka sameeyo waan rabaa laakiin waxa asal u ah ruuxaantii in la helo nabadgelyo iyo ammaan nabadgelyo iyo ammaan markii la helo dhaqaaluhu waa imaanaya dhaqaaluhu waa imaanaya waxyaabaha kale oo ruuxaantii oo dowladda laga rabo inay ciyaarto roolka ciyaarto waxa weeye inay samayso shuruuc dadka maalgelinaya wadanka lagu dhiirigelinayo ama dhul lagu siinayo ama canshuur lagu dhaafayo ama dadka soo jiidasho ah ugu dambeyntii dardaaranka reer Puntland iyo Soomaalida oo dhan maxaa dhihi lahayd mahadsantahay cabdi ru'aantii waa su-aal muhiim ah meesha ku jirta dadka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya dhammaantood horta waa idin salaamaya marka u horeysa marka labaad reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed dhanba waxaan kula daarnaa marka hore in nabadgelyada laga shaqeeyo in dowladaha la doortay oo maamulada la doortay dowladahaas lala shaqeeyo oo nabadgelyada shacbigu ay ka qayb qaataan dadka madaxda loo doorto kaliya wax ma sameyn karaan haddaan shacbigu taageero siinin dowladda oo aan la shaqeyn oo nabadgelyada kala shaqeyn oo inaan xasarada iyo dhibta ka daynin iyo dadka weliba gaar ahaan qabiilka inta wax lagu raadinayo le reer hebel kursi si reer hebel inta helo reer ninka alle ninkii shaqada loo dhiibo oo ninka la doortaa shaqada u dhiibo oo hadhowto oo lagu kalsoonaado oo la sugo waayo markii nabadgelyada laga shaqeeyo maalgelinta imaanaysa dadkii xoolaha watay baa wadanka imaanaya markii nabadgelyada ayaa dadka deeqda dowladda macnaha dadka hore dowladnimada iyo kursi ma deeqi karo in qof walba kursi la siiyo iyo qof walba jawaab dadka hore ma deeqin laakiin waxa dadka deeqi kara nabadgelyo iyo ammaan iyo cadaalad marka in la sugo oo dowladaha lala shaqeeyo oo dowladaha la taageero oo nabadgelyada iyo ammaanka laga shaqeeyo deegaanka in la ilaasho deegaanka Soomaaliya arrinta muhiim ah in dhulka deegaanka la dhowro dhuxusha ilashada la joojiyo iyo dhibaatooyinka deegaanka u geysanaya waayo dhulkeena waa inaga badan yahay Soomaaliya barwaaqo badan baa taala badda iyo dhulka iyo beeraha iyo kulli way buuxa meesha maanta gobolka aan ka soo shaqeeyay Shabeellaha Hoose iyo gobolka Bay labadaba aad baan waagan beeraha ka shaqeyn jiray ka soo shaqeeyay dhul aad iyo aad barwaaqo u ah way oo Soomaaliya dhan iyo ku filan beeraha ku yaala Puntland hadda aan lagu tiriyo wadamada aan xagga beeraha ku habooneen beero badan baa laga abuuri karaa laga beer hadda biyo u baahan tahay meel alle iyo meeshii geed ka baxo oo geedna lagu beeri ka soo bixi karaa dhulka dhan waa fertile biyo u baahan meel kasta Puntland hadii dabcan la beero waa la beeri karaa marka dadka reer Puntland waa inay dhulkooda beertaan beeraha inay u jeestaan timirta la beeri karaa dalag kasta uu ku beermaya dalagyo badan oo dhulka Puntland ku beermaya oo biyo yar u baahan waxa jira cawsas adduunka laga helo xataa Australia halka laga helo oo dhulka dryland loogu talagalay oo mirooda hadii dhulka lagu daadsho dhulkii caws badan ka soo baxayo oo ayaabaaas marka arinta xagga beeraha maadaama anagu laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliya ay tahay xagga xoolaha iyo beeruhu isku xiran yihiin waxay cawska iyo deegaanka in la ilaasho aad iyo aad ayaan kugu mahadinayaa ogolaanshaha wareysigan caawa Puntland TV studiogiisa Melbourne. Thank you guys. Martin. barnaamijkeena astaan horumaran caawa halka wareysiga kaga qaaday Yaasiin Maxamed Faarax waa Yaasiin Dehal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaynu mar kale ku kulmayna barnaamijka astaan horumar studioga Melbourne waa Cabdi Cilmi isma dhaafno iyo asbuuca dambe la soco Puntland TV Melbourne iyo barnaamijka astaan horumar sidaa iyo nooli kulanta. هذا مركز